Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan. Waa maalinimo axad ah bisha December ay tahay 5 sanada 2021. Qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii Tigray oo ka soo muuqday kulan caalami ah kadib markii la isku hayay maalmo inuu dhintay iyo in kale. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya magaalooyinka Kombolja iyo Daze ayaan barnaamijka ku eegi doonaa. Qowmiyadda Tigray oo maanta banaanbax weyn ka dhigaysa magaalada Addis Ababa. Dhanka Soomaaliyana koox hubeysan ayaa toogasho ka fulisay magaalada Muqdisho. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal. Soo dhawaada. Haddii aan ku hormarno madaxweynaha Tigray oo maalmo badan muuqiisa la la'aa ayaa lagu arkay isagoo ka qayb qaadanaya shir caalami ah aaladda Zoom-kana ku jira. Madaxweyne Debretsion Gebremichael ayaa maalmo badan laga la'aa saaxadaha caalamiga ah iyo weliba meelaha dagaalka, iyadoo dad fara badan oo Itoobiyaan ah ay ku tirinayeen in duqeymihii ay dowladda Itoobiya ka fulinaysay magaalada Makale uu ku baxay madaxweynaha Tigray. Balse wararkaasi ayaa u muuqda kuwo aanan sal iyo raad toona lahayn. Madaxweyne Debretsion Gebremichael ayaa mar kale ka soo muuqday kulan caalami ah, waxaana halkaasi ka qayb qaadanayay kulan lagaga hadlayay arrimaha Tigray iyo xaaladaha ka taagan gobolkaasi. Madaxweyne Debretsion Gebremichael oo maalmihii la soo dhaafay ay dad fara badan oo dowladda taageera ay lahaayeen wuu dhintay, islamarkaana waxaa lagu dilay duqeymihii halkaasi ay ka geysteen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. Balse madaxweyne Debretsion ayaa markii hore la sheegay in dhaawac aan sidaa u weyneyn uu ka soo gaadhay duqeymihii ay dowladda Itoobiya halkaasi ka waday. Inkastoo uu soo muuqday madaxweynaha Tigray Debretsion Gebremichael, waxa uu weli aan muuqiisa la arkin afhayeenkii Tigray ama kooxda TPLF-ta Getachew Reda oo baryahan isagana aan la arkin. Getachew Reda oo ay ugu dambeysay dadku inay arkaan 2 usbuuc ka hor ayaan weli muuqiisa la haynin, isaga oo mar lagu tiriyay labadoodaba waa madaxweynaha Debretsion Gebremichael iyo Getachew Reda in halkaasi ay ku baxeen duqeymihii dowladdu ay ka fulinaysay magaalada Makale oo ay sheegtay inay ku bartilmaameedsanaysay madaxda TPLF-ta. Dhinaca kale, dad badan oo Itoobiyaan ah ayaa weli aaminsan in madaxweyne Debretsion iyo Getachew Reda aanay nooleyn, iyadoo ay ku sheegeen muuqaalkiisii laga soo duubay isagoo ka qayb qaadanaya shirkan caalamiga ah inuu ahaa mid hore loo duubay islamarkaana la diyaariyay. Inkastoo aan la xaqiijin karin sheegashada dadkan dowladda taageera ay sheegayaan in madaxweyne Debretsion uu goor hore ku tegay duqeymihii dowladda Itoobiya, ayaa dad badani waxay arkayeen in Debretsion uu ka qayb qaadanayo kulankaasi. Laakiinse waxaan la caddayn karin in hore loo duubay iyo in kale, balse Zoom-ka iyo weliba shirka uu ka qayb qaadanayay wuxuu ahaa mid live ah oo markaasi ay dadku si toos ah ula socdeen. Weli waxaa sii socda su'aalihii ay dadku iska weydiinayeen madaxda Tigray. Afhayeenkii TPLF-ta oo inta badan ka ag muuqan jiray madaxweyne Debretsion ayaan weli la arkin, isagoo kulanka xalayna uu keli ku ahaa madaxweyne Debretsion balse aanu ka ag muuqanin Getachew Reda oo ahaa afhayeenka kooxda TPLF-ta oo inta badan ka hadli jiray xaaladaha kooxda iyo dagaalada ay la galayaan dowladda dalka Itoobiya, wuxuuna saacad kasta ka warbixin jiray dagaalada ka dhaca dalkaasi iyo meesha ay iyagu marayaan, iyo weliba jawaabka kala duwan ee soo gaadha dowladda iyo meelaha ay ka qabsadaan. Afhayeenka kooxda TPLF-ta Getachew Reda ayaa inta badan u warrami jiray wakaaladaha wararka ee caalamiga ah, balse muddo isbuucyo ku dhow lama hayo meel uu jaan iyo cirib dhigay. Haatan aan u leexano dhinaca furimaha dagaalka ee dalkaasi Itoobiya oo weli halkoodii ka sii socda, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa kooxda TPLF-ta iyo weliba jabhadda Oromada oo iyadana aan dab yar shidaynin ay halkaasi dagaalo xooggan ku dhex marayaan. Waxaana goobaha inta badan la isku hayay maalmahan dambe ka mid ah magaalooyinka Kombolja iyo Daze iyo weliba gobolka Axmarada oo magaalooyin dhowr ah ay sheegtay inay dowladdu kala wareegtay kooxda TPLF-ta. Haddii aan eegno dhinaca magaalooyinka Kombolja iyo Daze oo ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee haatan
ciidamada dowladdu ay ku dhow yihiin islamarkaana ayba qaybo ka mid a qabsadeen magaalada Kombolja ayaa la sheegaya in ciidamada dowladdu ay guud ahaanba gudaha u galeen balse aanay halkaasi la wada wareegin magaalada Kombolja iyagoo xaafadaha qaar lagu dhaxarkayo ciidamada dowladda Itoobiya oo ku sugan magaaladaasi. ciidamada dowladda dalka Itoobiya ayaa taxadar weyn ka muujinaya gelitaanka magaalooyinka Kombolja iyo Daze oo ay halkaasi ku sugnaayeen muddo bilo ah. Kooxaha isbahaystay ee jabhadaha oo ay ugu weyn yihiin kooxda TPLF-ta iyo kooxda kale ee Oromada ee Ola, waxaana halkaasi la filayaa in magaalada Daze oo iyadana ay qarka u saaran yihiin ciidamada dowladda Itoobiya islamarkaana ay goor horeba baneeyeen kooxihii TPLF-ta iyo weliba Oromada ayaa halkaasi ciidamada dowladdu aanay weli gaadhin sida wararka aan ku helayno. ciidamada federaalka dalka Itoobiya oo ka yimid dhinaca gobolka Canfarta ayaan la kulmin wax iska caabin ah oo xoogan oo ku aadan magaalooyinkan Kombolja iyo Daze oo horey loo filayay in halkaasi ciidamada TPLF-tu ay ku geli doonaan dagaal faraha looga gubto, balse ciidamada dowladda Itoobiya ayaa halkaasi aan kala kulmin wax iska caabin ah. Sida wararka aan ku helaynana magaalooyinka Kombolja iyo Daze oo ciidamada TPLF-tu ay horey ugu sugnaayeen ayay isaga baxeen markii xuduudka Canfarta iyo weliba magaalooyinkan oo ku yaala gobolka Axmarada ay soo tallaabeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya oo ka yimid dhinaca Canfarta, waxaana halkaasi isaga sii baxay ciidamada TPLF-ta iyo kuwa Oromada oo halkaasi horey ugu sugnaa. ciidamada dowladda dalka Itoobiya ayaa wada dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo weliba weeraro aan kala joogsi lahayn oo ay ku qaadayaan ciidamada jabhadaha oo ay kaga fureen aagag fara badan oo furimo dagaal ah, waxaana halkaasi lasoo sheegayaa in gobolka Axmaradu uu yahay gobolka ay inta badan ka haysteen magaalooyinka ugu badan kooxaha TPLF-ta iyo Oromada, balse haatan ay magaalooyin yar ku soo hadheen gacanta kooxda TPLF-ta iyo weliba Oromada. ciidamada dowladda dalka Itoobiya ayaa sheegay in maalinimadii shalay ay la wareegeen magaalooyin ku dhow 6 oo ku yaala gobolka Axmarada islamarkaana ay ku sii siqayaan xuduudka gobolka Axmarada iyo gobolka Tigrayga. magaalada ugu weyn uguna muhiimsan ee shalay ciidamada dowladda Itoobiya ay soo bandhigeen waa magaalada Kimise oo ku taala gobolka Axmarada islamarkaana ay ciidamada dowladda Itoobiya muuqaal iskaga soo duubeen iyaga oo magaalada galaya islamarkaana ku sugan gudaha magaalada Kimise. dhanka kale banaanbax xoogan ayaa ka socda magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya Addis Ababa. banaanbaxaasi oo ay dhigayaan qowmiyadda Tigrayga waana banaanbixii ugu horeeyay ee magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ka dhaca ay dhigayaan qowmiyadda Tigrayga oo ay kaga soo horjeedaan kooxda TPLF-ta oo ay ku sheegeen in ay shacabka Tigrayga ay go'doominayaan islamarkaana shacabkaasi uu gaajo ugu dhimanayo meelaha ay ku sugan yihiin kooxda TPLF-ta. lama oga cidda soo abaabushay banaanbaxan, balse waxaa la filayaa in dowladda dalka Itoobiya ay garab ku siinayso in ay halkaasi ku qabtaan banaanbax weyn qowmiyadda Tigrayga. qowmiyadda Tigrayga oo baryahan baa lagu tilmaamayay in lagu bartilmaameedsanayo magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ayaa doonaya inay muujiyaan in halkaasi ay xorriyad ugu nool yihiin islamarkaana ay dowladdu wax dhibaato ah u geysanaynin, balse ciidamada TPLF-tu meelaha ay ku sugan yihiin ay dadkii Tigrayga ahaa gaajo ugu dhimanayaan islamarkaana ay ku jiraan go'doon. haatana dhanka Soomaaliya wararka ka imanaya waxay sheegayaan in toogasho ay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska dabka sida ay goobjoogayaal noo sheegeen. koox hubeysan ayaa dil ka geysatay isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho oo mashquul badan xilligaasi ka jiray. toogashada oo ay xalay fuliyeen koox ku hubeysan bastoolado ayaa waxaa loo geystay askari ka tirsanaa booliiska amniga isgoyskaasi. gacan ku dhiiglayaasha ayaa meesha ka baxsaday kadib dilka sida ay dadka meesha ku sugnaa inoo xaqiijiyeen. muddo kooban ayay xaaladdu ahayd mid kacsan, lamana soo sheegin cid loo qabtay falkaasi, waxaana daqiiqado kadib laga qaaday meydka askariga la toogtay isgoyska dabka oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dilalka qorshaysan ayaa ku soo badanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho baryahan dambe, waxaana toogashooyin kala duwan loo geystaa dadka ku dhaqan magaalada iyo weliba ciidamada amniga.
Khayarta sharafta leh hawada nagala socoto intaasi waxaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay nooga imanayay guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. Intaan ku kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.